waalidiinteedii nagu soo tabcay hooyadii macaan garabkayga taagan iyo habaryarahay aabbahay isnaan ag taagnay laakiin jooga isaguna aad baan ugu mahad celinayaa runtii hi iyo hoolba wayna la garab taagnaayeen waa maalin weyn alla weyn waa maalintii qalin jabinta inankayga jaamacadda adna aadan oo qaybta ilkaha uu ka qalin jabinayo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda jaamacadda adna ka qalin jabisay si gaar waxaan u hambalyeynaa ardayda isku klaaska hayn intaasoo sanno 7 sanno aan ka wada qalin jabinay medicine-ka habareertay oo hooyaday ah oo meel dheer iga timi iyo ayeeyday oo i soo gaari kari weyday oo laakiin gurigii joogta waxaan leeyahay ayeeyo farxadaadu gurigana waan kugu imanaya waanan kaa haya magacaygu waa xamdo faarax daahir waxaan ahay ardayd ka qalin jabisay jaamacadda adna aadan university kuliyadda umulisooyinka runtii 4 sano oo tacab badan iyo maxaa la yidhaha rafaad badan aan soo marnay dadaal badan habeeno badan soo jeednay maanta waxaa allah subxaana wa tacaala suurto geliyay inaan dhammaan anagoo faraxsan halkan isugu nimaadno farxaddayda nagala qayb qaato waalidiinteedii nagu soo tabcay hooyadii macaan garabkayga taagan iyo habaryarahay aabbahay isnaan ag taagnay laakiin jooga isaguna aad baan ugu mahad celinayaa runtii hi iyo hoolba wayna la garab taagnaayeen hadiyadan qaaliga maadaama jaamacaddeeda siisay waxaan u hibeynayaa hooyadii aabbahay oo tacab badani geliyey maanta farxaddeeda lama soo koobi karo aad baad u mahadsantihiin magacaygu waa asma mustafa maxamed waxaan ka qalin jabiyey kuliyadda medicine-ka jaamacadda adna aadan marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay marka ku xigta waxaan mahadnaqayaa hooyada iyo aabbahay oo heerka maanta soo gaarsiiyey iyo dhammaan walaalahay waxaan u mahadnaqayaa kala jaamacadda oo intaasoo dhan dadaalna soo gelisay waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda jaamacadda adna ka qalin jabisay si gaar waxaan u hambalyeynaa ardayda isku klaaska hayn intaasoo sanno 7 sanno aan ka wada qalin jabinay medicine-ka dareenkayga maanta lama soo koobi karo waxaan guranayaa midhihii 7 sanno aan ku soo dadaalayey soo rafaadayey marka dareenkayga maanta lagama sheekayn karo waa maalin weyn dhammaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda adna aadan university runtii farxad weyn bay noo tahay anigu saaka waxaan ka qalin jabinayaa kuliyadda caafimaadka postgraduate diploma of obstetrics and gynecology 2 sano ka hor waxaan ka qalin jabiyey kuliyadda medicine oo medicine and surgery sanad kadib haddana waxaan dib u diyaariyey postgraduate diploma of obstetrics and gynecology aad baan u faraxsanahay dhammaantay ardayda qalin jabinaysa waxaan naga go'an oo aan ballan qaadanaa inaanu si xirfad leh ugu adeegi doono bukaanada kala duwan ee u adeegno sidii laga bartay ardayda ka qalin jabisa jaamacadda adna aadan maanta waa maalin weyn bay noo tahay alxamdulilah waa maalin kale oo aan ka midho dhalinay waxbarashadayadii waxaan jeclaan lahaa inaan mahad celiyo waalidkay dhakhaatiirtii inta badan na soo gelisay tacabka iyo ardaydii dhakhaatiirta haydeen isla graduate garaynay waxaan leeyahay hambaliyo waa hayaan dheer aan maanta soo dhammaynay ilaahay mahadde alxamdulilah rabbil caalamiin dhammaan waalidiinta ayada macallimiinta nagu soo tabcay dhammaantood waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahay idinka jaasiiyo waxaan soo marnay hayaan dheer oo qaatay 7 sanno waxaan bilownay December 2deedii 2017 maantana waxay maraysaa 2024 7 sanno kuliyadda medicine and surgery aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin hambaliyo dhammaan ardayda qalin bedelatay maanta halkan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb ka ahaado qalin jabinta jaamacadda adna aadan anigu muddo 7 sano soo waday kuliyadda medicine and surgery waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa waalidkay oo aad igu soo tabcay hooyadii aabbahay iyo habeertay aad tacab badan soo gelisay ifraax yuusuf iyo abtiga deeq ismaaciil sidoo kale adna aadan ismaaciil oo qayb ka ahayd in dadaalkana soo gelisay juhdigan aan aad ugu mahad celinayaa marka aad buu mahadsan dhammaan ardayda ka qayb gashay qalin jabinta jaamacadda adna aadan university aabbahay hooyaday abtiyaashay habayaashay waxaan ku soo koobayn aabal weyn baan idinka hayaa ilaahay dadaalkiinii maanta halkaas uu soo gaarsiiyey marka ilaahay waxaan idinka baryayaa janno magacay waxa weeyaan Dr. Mukhtaar Ciise Xasan waxaan maanta u dabaaldegaynaa farxadda qalin jabinta jaamacadda adna aadan university hayaan dheer oo aanu ku soo marnay muddo qaadanaysa 7 sannadood alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxa farxadii ah inaanu soo gabagabaynay hayaankii dheeraay aanu soo marnay waxaan aad halkan ugu mahadnaqayaa marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahadnaqayaa hooyaday Aamina Sulaymaan Xasan waxa kale oo mahadnaqayaa walaalkay Cabdulla Ciise Xasan habareertay oo hooyaday ah oo meel dheer iga timi iyo ayeeyday oo i soo gaari kari weyday oo laakiin gurigii joogta waxaan leeyahay ayeeyo farxadaadu gurigana waan kugu imanaya waanan kaa hayaa aad baad u mahadsantahay
maanta waa maalin weyn alla weyn waa maalintii qalinjabinta inankayga jaamacadda adna aadan oo qaybta ilkaha uu ka qalinjabinayo waxaan aad iyo aad marka hore ilaahay baan ugu mahad celinayaa sidaanu maxayda inoogu fududeeyey dadaalkii dhanaa soo gallay iyo waxaan mahad celinayaa jaamacadda iyo maamulka iyo macallimiintii ku soo daalayba intaba waan u wada mahad celinayaa aad iyo aad bay u wada mahadsan yihiin